إن لبا قف دلنير أو إسقبين أي سوي مادان أما يحب يسسيان أما مرع الله كو أي سوي مادان قبع الله أما قولي هنقطة ما بنام به إن حرانته موته منافقة نكاس وين بإله بنكو دارية إلى مغلبة سبحان الله السجع أيام لبدأ قبلود بقى habsiinay mid baa imaatay habbuusiyay way baxday saacada kadib mid kala imaatay hab ayuu siiyay haddana isla meeshii la rabayna annagu isaga iyo ayagaba aan weydiino laba qofood oo kala ajnabiya oo aan isqabin sidee bay xalaal ku noqotay inay hab siiyaan isaga ayaaba gabadh weydiinaya yacni wuxuu iska dhigayaa isagu inaa dambi ku jirin waa waqtiga aan joogno social media meesha uu taagan yahay taa waxaaba kaaga daranba gabadhu sida ay rabto habsiinta xitaa inay nooga dhaadhacsiiso in wax dambiga uu ku jirin oo safar ka imaaday baa sahab eesisay xitaa waxa laga yaabaa dad moment ina qalbigayga xitaa wax feeling markaas uu ku jirin oo dareen kale xamaasad kale iyo dagaal iyo waxyaabo kale tii balay iga dhex guuxaysa anima ka habta isiinaysay teeda kale hab marka isiinaysay xagee hab siisay jaakad weyn ab iga soo horeysay qofka markuu nuut yahay oo dhar mataqaanaaye ii sheegeen ku dhagan sayd uu saan isku ka duubo habta sorta habta xaraanta waa dhihi karaa ani بما شيء أو قفك جركي سان اسكت عبنايو لكن سا جاكيت وين وضعتها وحاولتها ضد أصحابها هب سيسيا إلهي مرة بقفوا الرحيمة كله يعني قفك جنريشن كواكل دونا كرا وكهذه مركا سيدا موقتو waxa ay rabtay inay macnaha dambiga ay rabtay inay xalaalayso waa waxa horta soconayeen dadku way soo jeedaan dadkuna waa dad diintoodii fahamsan balse hal mid aan rabaa inaan sheego waayihii dambe waxa aad u soo batay gabdhaha u safraya niman ayna isqabin yani social media lagu arkay fan ka dhiganaya live soo galaya muuqaalo soo duubaya iyagoo u safraya u tagaya dabadeedna waxyaabo qalad sameynaya qaarkood xitaa iyagoo isla jiifaan xitaa muuqaalo soo duubaa sida hadda teamkan oo kale marka labadan gabdhood laba wadan oo kala duwan ee ka soo kala safreen waxaan u soo safreen ninkaas odaga inay u imaadaan horta wixii ay sameeyeen waa wax ayaga ilaahood xagoodii ka yaalo macna u yaalo waayo xisaabtooda u taalo balse mid aan rabo in bulshada Soomaaliyeed u sheego waxa ay tahay in arintan la rabo in caadi looga dhigo bulshada aynaan ogolaanin in arintan ay caadi noqoto sababtoo wax caadi noqon karo ma iyagu waxay rabaan inay caadi ka dhigaan balse inaysan caadi noqon karin in bulshada la dareesiyo la rabaa sidoo kale waxa imaan doonto maadaama dadkaas hadda ay dad badan oo daawada heleen dad badan oo ku xirna heleen waxay dareemayaan farxad kuwa kale waxay isku dayi doonaan inta in ka badan aan sameeyno si anagana aan hadal heen u sameeyno marka halis weyn ee ku sii socotaa media gaar ahaan TikTok waliba ciwaano badan waxaan arkay Facebook hawada laga saaray TikTok sidoo kale waa arkay teamki waxaanu kala sameeyo iyagana u qalmaa in hawada laga saaro adigu maxaad u aragtaa bal teamka barnaamijka cusub bilaabay ee dhaqanka islaamka wali mid Soomaaliyeed ba ka soo horjeeda maxaad ka qabtaa bal arintan qaybta commentiga iyo